صدح شكور هداد يبسن لهيد كوين كان $100 oo kamida hadda $100 oo kamida hadaad iibsan lahayd maanta $100 intuu ku ahaan lahaa mad garanaysaa wuxuu ku ahaan lahaa $23,000 ayuu u dhigmi lahaa $100 ee iibsatay 3 cisho kahor okay and coin kani waa meme coin oo muxuu ahaayay launch gareeyay ama uu bilaabay madaxweynaha Mareykanka ee hadda xilka la wareegay and 18 bisha ee la soo dhaafay and marka la bilaabay meme coin kan qiimaheedu wuxuu ahaa 18 senti oo kaliyaata 18 senti oo kaliyaata ayuu ahaa and imikana wuxuu marayaa $40 halka coin $40 buu ahaa markii la bilaabayna wuxuu ahaa halka coin 18 senti oo kaliyaata ayuu ahaa way haddaba kor buu kacay imika qiimihiisu waa soo yara dhacay laakiin 2 cisho ka hor wuxuu marayay qiimuhu $70 inay xabadu ahayd micnaheedu tahay qofkii $100 iibsaday maalintii la bilaabay iyadoo ah qiimuhu 18 senti isagoo iibsaday wuxuu haysan lahaa habeenkaas $30,000 ayuu haysan lahaa oo 2 cisho gudahood uu ku helay marka ilaa imikana qiimaheedu runtii hoos buu dhacay oo wax badan baa ka dhacay way dad badan baa lacag iyo xala baxay laakiin still $40 buu marayaa dadkii meel hoose ku iibsaday ilaa imika faa'iido ay joogaan coins kale meme coins kale ayaa la sheegay ilaa imika inay maaragtay lagu dhawaaqi doono oo muxuu ahaayay dad badan ay announce gareyn doonaan ama ay launch gareyn doonaan celebrities iyo dad caana marka waxaan oran lahaa qofkii wax yar haysto Solana inta din yar ka iibsato hayso si aad maaragtay coinska kolba trending-ka ah ee celebritiesku ay sameynayaan dadka ugu horeeyay iibsada inta noqoto hadhow toolo uga la baxda lacagta oo wax badan ka faa'iido